waxaana igu soo oogay dembigii hore ee guri jabsiga ahaa, laakiin boolisku wuxuu maxkamadda ka codsaday in intay kiiskayga isku soo duwaan xabsiga dhexe lahayo la iiga sii dhigo. micnaha ma xukunni, laakiin xukun sugaan ahay. markii xafiiska qaaliga la i keenay aasi aan waraaqihii la igu kaxeen lahaa weli la samayn, baan indhaha isku dhufanay habaryar biyood oo ay hooyaday saaxiiba run ah yihiin, derisna nala ahaan jirtay, aana la ii baray inay habaryartay tahay. markay aragtay anigoo jeebeysan bay madaxa gacmaha saaratay oo tidhi, alla cobtan baa balanbashay, waxaasaan alle u galay mamadigii lagu arkayba. waxay damacday in ay i wareysato, laakiin waqtiga uma saamxin oo askartiibaa arrintaas diiday. si kastaba ha noqotee habaryar biyood waa haysaa war ay hooyaday wadnaha ku goyso anigana igu ceebeyso. markiiba wadaday cagta saartay iyadoo ku jihaysan xagga iyo gurigayaga si ay saaxiibteed ugu faahfaahiso wixii maanta dhacay. nasiib xumo intay jidka kusii jirtay baa hooyaday waxaa soo gaaray khabaarkii ugu xumaa nolosheeda soo maray. gooray barqadii tahay baa guriga lagu soo garaacay. waa qof cidla dishay. hal haleel bay albaabka u furtay. se waa askari lebisan oo gacanta ku sida bashqad xiran oo uusan ka warqabin waxa ku jira. markay askarigii iyo islaantii albaabka ku kulmeen buurqadii u dhiibay oo isjambaacay intuusan dhaqaaqin bay ka daba qaylisay oo tidhi, walaalow wax ma aqriyi karee kaalay warqadda ii akhri. gurigii bay dib u soo wada galeen. isagoo taagan buu ku yidhi, warqadda fur deedna ii dhiib aan ku aqriye. hadalkii ugu horreeyey ee ka soo yeera askariga afkiisa wuxuu ahaa sidaan, innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun. eedo waa la wada dhimanayaa, allaha u naxariisto nuurjiriin. waa geeriyooday isagoo fulinaya shaqadii qaranka u xil saaray. askariga afkiisa hadalkii kama dhammaan markay hooyo baroorta la gelgelatay. muddo qiyaastii saacad ku dhow markay baroortii waday welina aan fari ka qodnayn baa albaabka hore lasoo garaacay, laakiin dhegay jalaqba looma oran. waa habaryar biyood qofka meesha ku cagaartay. markay wax la hadla weyday aase gurigii baroortii ka dhex yeerayso bay albaabkii hore oo sidii askariguba uga baxay u furnaa iska soo riixday. mise saaxiibteed cobtan madaxay gacmaha ku haysaa oo muuqaalkeedii iyo midabkeediiba waa isbedeleen. markay ka samirtay inay dejiso bay gacanta ola tagtay oo intay garabka qabatay ku tiri, miyaadan muslin ahayn oo wixii alla keena ku samraynin? aamus oo isdeji hooyo. waxay biyood u sheegtay in aabba dhintay, wiilkii madiga ahaana aan la aqoon meel uu ku sugan yahay oo uusan wax dhintay waxba doorin, sidaasi darteed ay ku sifaysan tahay gablan iyo guri madow. habaryar biyood waxay sheegtay warkii ay la babanaysay oo markaan raqiis ah, waxayna tidhi, anigu ruuxayga warsan kuuma wado. waxaan maanta la kulmay madigaagii oo jeebeysan oo xabsiga dhexe loo sii wado. waxaa la yidhi balaayo ninkay hal far saarto waa calaacalaa, ninkay 5 farood saartana waa xamdinaqaa. hooyo markaan waxay ku jawaabtay, amarka allah sidaa wax yidhi. war iyo dhammaantii labadii islaamood waxay ku heshiiyeen inay biri xabsiga dhexe isu raacaan, balse loo soo ogaado meel aan ku dambeeyey. sheekadan yar oo dhextaalka ah kadib aan u soo laabanno xaaladaydii. meeshay biyood iiga tagtay baan aad ugu daahay oo waraaqihii xabsiga la igu geyn lahaa baa dhaqso u dhammaan waayey. waqti qiyaastii ku aadan 4 iyo bargalabnimo baa 2 askari ii taxaabeen anigoo jeebeysan oo weliba gaajo iyo haraad la ildaran. waqtigaasu wuxuu ahaa mar maxaabiista qolalka lagu xareeyey oo aan wax shaqo ah xabsiga dhexe ka socon. sargaalka shaqada leh baa la ii geeyey. isna intuu diiwaanka igu qoray buu amray in qolka 12aad la igu rido. markaan iridda ka soo galay waxaan indhaha ku dhuftay 3 nin oo midkood jiifo. waxaan kaloon arkay qolka inuu ku filan yahay 2 nin oo qur ah, laakiin 3 iriiri ku seexan karaan. markaas anigu boos ma haysto. waxaa soo istaagay ninkii jiifay. waa nin lixaad weyn, madow, bidaar leh, tuur leh, indha gudguduudan oo intuu qof aadami ah fool xun yahay fool xun. waxaa lagu magacaabaa ahbal doqon. wax inuu dila ma ahee wax kale ma yaqaan. qolka 12aad isagaa xukuma. intuu soo istaagay buu dharbaaxa xoog badan igu galaalay. markii dhiigaygu samada u duulay buu intuu indhacadaawe ku dhugtay 2 nin oo kale ku amray
inay dhiigayga wasaqdiisa joojiyaan. iyagoon dheg la qato lahayn bay igu soo boodeen oo shaarkaygii kala jeexeen, oo dhiiggii korkayga ku daatay iyo kii gacanta ahbal gaarayba ku nadiifiyeen. waxay kaloo sameeyeen intay gedi cad ii jiifiyeen si dhiigga sankayga ka socda dib ugu noqdo. markii dhiiggii yara joogsaday bay surwaalkii aan qabay kala jeexeen oo dhiiggii dhulka gaaray ku tirtireen. markay qolkii nadiifiyeen baa saddexdoodii seexdeen qolkii iyaga isla ekaysiiyeen. anigoo qaawan dhidid dhowr kastuumo keliya ah baan majahoodii fariistay oo waagu iigu bariyey. markii waagii bariyey oo maxaabiistii la soo saaray baan anoo qaawan soo baxay. markaasaa dadkii ila yaabay. ये सलाम